ومركل برنامج شيكوينكا شكلها ما شيكو حساب هم قدر شكل الملك وحلا حشوتك هبلها iyo xarun jacayl sheekada waxa qoray Cabdiraxmaan Maxamed guul waa mar kaleeta iyo sheekadeena xiisaha badnayd xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii saddexaad ay noo marisay iyadii oo ay kulmeen Subeer iyo Salma iyadoo Salma laga warsugayay inay ka soo jawaabto warqadii uu Subeer maalintii hore gacanta ugu dhiibay haddaba balaynu gudagalno sheekada qaybteedii afraad iyo waxay noqotay jawaabtii Salma intay qoorta kor ula soo yara kacday oo ay dhoola cadaysay ayay si degan u tiri waa runta oo arrintu aniga ayay ila jirtay oo jawaab la iga sugayay warqadiina waan akhristay si fiicanna waan u fahmay ujeedada ay xambaarsanayd sida awgeed arrintii aad jawaabteeda iga sugaysay markaan dhinac walba ka eegay waan kula qaatay laakiin waxaan ka warsugayaa sida ay arrintaasi kaaga dhab tahay iyo sida aad uga soo baxdo axdiga Subeer waxaa ka go'day falaar kaga taagneed garka wadnaha waxaana ka soo booday bahal leef ah kadibna wuxuu ku tiraabay walaal aad baad u mahadsan tahay aniguna waan ka soo baxayaa waajibkayga intaa kadib Subeer wuxuu yidhi gacaliso inawadii aan ku sii yara dhaweeyay dabadeedna way dhaqaaqeen wadada ay sii marayaan waxa taagan odaygii dhamal ee Subeer aabihii oo raagsaday wiilkiisa Subeer oo leh waar tolow xaggee wiilkii ku raagay hase yeeshee Subeer waxba ma arko oo wuxuu ku mashquulsan yahay gabadhii Salma oo waxoogaa ballan ah uu ka sii yara gaarsiinayo waxaanu leeyahay walaal Salmaay bari oo qura ayaan magaalada joogaa waxaana maqnaan doonaa muddo ilaa 20 cisho ah waayo odayga aabbahay ayaan isku raacaynaa Sacuudiga oo aanu alaabo ka soo iibinaynaa kadibna insha Allah waanu soo noqonaynaa markaa gacaliso noole kulantay ee isiisu Salma inkastoo aanay warkaa ku farxin haddana jawaab diidma ah kamay bixin waxayna tiri waayahay waan kaa warsugayaa ilaahayna ha ku soo nabad celiyo Subeer oo ka warwarsan odayga aabihii ee sugaya ayaa yidhi walaalo odaygii aabbahay ahaa ayaa isugayay maca salaama kadib way kala dhaqaaqeen Subeer isma laha odayguu ku arkay balse odaygu si fiican ayuu la socday dhaqdhaqaaqa Subeer iyo inay gabadh isku maran yihiin Subeer intuu gaarigii baarkanka dhigay ayuu dukaanka degdeg u soo galay kadibna odaygii ayaa ku yidhi aabbo maxaa kugu dhacay 2 saacadood ayaad iga maqnayd 20 daqiiqana inaad iga maqnaato waynu isku ogeyn Subeerna wuxuu ku jawaabay aabba waxaan tegey gurigeennii oo aan waraaqo ka soo qaatay odaygii dhamal ayaa isna ku jawaabay aabbo waraaquhuma waxay ahaayeen gabadhii aad ku mashquulshay ee shirka gaariga kuu saarnayd Subeer intuu aad u naxay ayuu xaggaas u sii jeestay oo hoos u foorarsaday balse intaan waxaad ahay ka soo bixin ayuu odaygu ku celiyay aabbo miyaanan mar hore ku oran waxba ha iga qarin ta kale miyaynaan isku ogeyn inaad guursato oo aanad igu oran iga warsug maxaa dhacay ma wixii aynu isku ogeyn wax ka duwan ayaad wadaa oday dhamal sheekadii wuu sii waday waxaanu yidhi aabba Subeerow wiil yar baa tahay geel 2 jir sooda markaa ma aha inaad iga qarsato waxaan kula fahmayo hadhowna aniga qarsoomayn dhamal hadalkii ayuu ku sii dheeraaday waxaanu ku celceliyay Subeer in aanu waxba ka qarsan ee uu u sheego wax kaste oo la soo dirsa Subeerna intuu xishooday iyo ixtiraam dartii gorada hoos u laalaadiyay ayuu hayadaa guray oday dhamal wuxuu marba wiilkiisa Subeer ku tuurayaa hadal yar oo sidii kaftan oo kala ah laakiin doorxul ah waxaana ka mid ahaa hadalladii uu hoosta uga dhiibay aabbo gabadhu tuma ay ahayd waa ina ayo xaggee bay degan tahay Subeer oo uu xishood badan ka muuqdo balse waxoogaa sidii hore soo yara dhaamaya maadaama aanu aabihii waxba la diidaneen ayaa isagoo hoos u foorar wuxuu yidhi aabbo gabadha Salma ayaa la yidhaahdaa waana xaafadan jaarkiina waxaana dhalay odaygan abtidoon dhamal hadal dambe uma noqon wuxuuna intuu madaxa yara ruuxay ku tiraabay
waan gartay. dhamal wuu ka gaws qabsaday arrinta, kumana qancin gabadha aabbaheed iyo qoyska uu wiilkiisu gabadha ka soo xushay. laakiin wiilkiisa madiga ah ee uu aadka u jecel yahay ma tusayo dareen diidmo ah iyo wax niyadjab ku rida toona. hadalkiina halkaa ayay ku hakiyeen. dabadeedna Subayr iyo aabbihii waxay ku kala foofeen wixii hawl ah ee ka dhiman, maadaama ay berri wixii ka dambeeya safar gelayaan wayna ka dhaqaaqeen. Subayr habeenkii oo dhan hurdo fiican ma lidin, wuxuuna ka fakarayay xaaladda jacayl ee ka aloosantay dareenkiisa iyo mustaqbalkiisa nololeed. isla markaana wuxuu ka gami waayey xasuusta soo noqnoqonaysa ee Salma. dhinaca kale, Salma lafteedu waxay wehel ka dhigatay warqaddii fariinta dahabiga ah xambaarsanayd ee uu Subayr ugu dhigay waayihiisa jacayl. Salma may lahayn saaxiibo gabdho ah oo badan, balse gabadh Yurub la yiraahdo oo ay jaar yihiin ayay marmar kala tashataa arrimaheeda. welise umay sheegin sheekadan cusub ee dhex martay iyada iyo Subayr. Yurub waxay ahayd gabadh bulshaawiya oo leh asxaab badan oo gabdho iyo wiilalba leh. Salma inkastoo ay gabadh afgaaban ahayd oo aan wax badan dadka la sheekaysan, haddana maalintii dambe ayay cabbaar meel ku sheekaysteen gabadhii Yurub ee ay deriska ahaayeen, isla markaana sheeka wadaagta ay ahaayeen. kadibna waxay u sheegtay in ay sheeko ka dhaxayso wiilka la yiraahdo Subayr. gabadha la yiraahdo Yurub aad bay u taqaanay Subayr, waayo reerahooda ayaa deris ah. kadibna Yurub iyadoo la yaabo marka ay Salmi u sheegtay ayay ku tiri, walaal Salmaay, miyaad igu ciyaaraysaa mise waa kaa dhab? intaanay Salmi weli jawaabin ayay Yurub mar kale hadal soo tuurtay, waxayna tiri, soo wixii oo qabweyni iyo qalqaloocin ahayd waxay ka ahayd hor iyo been. isla weynidaaduna waxay ahayd bilaa macne. ma naagtaada jeclaatay yarkii aan weligay aqaanay ee aan macnaha lahayn ayaa dooq leh. Salma may jeclaysan dhaliisha degdeg ah iyo hadallada aan wacnayn ee ay Yurub kula dul kuftay Subayr. waxayna ugu jawaabtay, walaal Yurubay, ninkaasi aniga ayuu dooqayga noqday iidda oo yeenaan ilaa heerka isla gaadhin. hana ku degdegin waxyaalaha qaarkood. Yurub markii ay aragtay jawaabtaa ka soo yeedhay Salma iyo sida ay u diidan tahay in wax laga sheego Subayr, ayay doodii mawduuca ku saabsanayd dhammaanteedba soo afjartay. waxaana sheekada kaga baxday, walaal Salmaay, waa adiga iyo nasiibkaa, anigu intaa waan kaala hanweynaaye. Subayr iyo aabbihii dhammaan waxay u safreen dalka Sacuudiga, iyada oo aanay Subayr iyo Salmi dib isku arag, waxaanay maqnaan doonaan muddo bil ah. Subayr muddadii uu maqnaa marna wax xidhiidh ah lama soo samayn Salma. 15 maalmood markii uu Subayr sii maqnaa ayaa waxaa dalka Jarmalka ka yimid nin ay Salma ilmaabti yihiin oo uu abtigeed dhalay. ninka uu magaciisa la yiraahdo Mursal. ujeeddada uu Jarmalka uga soo dhoofay Mursal ee uu dalka u yimid waxa weeye laba arrimood oo kala ah: inuu ididii Ruun ee Salma hooyadeed dhakhtar dibadda ah u qaado, iyo inuu gabadh ka soo guursado dalkiisa. waxaana sidaa kula soo dardaarmay ama ku soo diray aabbihii oo ay Ruun walaala yihiin. Mursal wuxuu ku soo degay guriga idadii ee reer Xaaji Abdidoon, kadibna waxaa loo goglay qol guriga ka mid ah. Mursal inaabtidii Salma wuxuu dalka ka tegey iyadoo 7 jir ah, maantana wuxuu u yimid iyadoo 17 ah, isla markaana si fiican u kortay oo gashaanti isku tumatay oo boqol lagala baxo ah. Mursal waa injineer, wuxuuna shaqo wanaagsan ka hayaa dalka uu degan yahay ee Jarmalka. Mursal da ahaan Salma wuxuu ka weyn yahay 25 sannadood, sidaas darteed waa 42 jir. wuxuuna hore u guursaday gabadh 3 carruur ah u dhashay, balse ay isfureen 2 sano ka hor, isla markaana waa maalqabeyn.
subeer iyo aabihii waxay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ka soo ambabaxeen 7 cisho markii uu Mursal joogay waxayna soo raaceen markabay alaabi u saaran tahay Mursal waxa uu sitaa baasaboor ay ugu qoran yihiin gabadhiisa iyo hooyadii kuwaasi oo waqtigan uu u qoondeeyay inay noqdaan ididii Ruun iyo inaabtidii Salma oo uu niyadda ku hayay kana helay Mursal markuu in badan fiiriyay eegina ka bugtay in badan oo ka mid ah hablaha deganaa magaalada waxa uu hore u waayay gabadh qancisa waxaase mar dambe niyadiisa ama qalbigiisa ku soo dhacday mar hadiiba aad gabadh guursanayso maxaa kuu diiday inaad inaabtidaadan Ilaahay dhamaystiray cidina kuu diidanayn aad guursato balse Mursal waxa ku adkaatay sidii ugu sheegi lahaa gabadha ay walaalaha yihiin ee imika damcu ka galay wuxuu sida ahaadaba oo uu goono u faqaba waxa uu markii dambe go'aansaday inuu la tashado odayga Abtidoon ee idadii qabi kadibna wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu guursado gabadha Salma wuxuuna intaa u raaciyay inuu waqtigu aad ugu yar yahay oo uu doonayo inuu dhaqso u laabto xaaji Abtidoon laftigiisu hoosta ayuu kala rabay laakiin afkiisa ma ahayn gabadheeda guurso Mursalla intii uu joogay dhowr jeer ayuu Salma geeyay goobaha dalxiiska wuxuuna u muujiyay dareen koolkoolin ah taasoo ku doonayay inuu dareenkeeda kasbado laakiin Salma waxaas oo dhan may dareemin waxayna u arkaysay inaabtigeed oo si gacalnimo ah u danaynaya hase yeeshee iyadoo Mursal weli joogo isla markaana ay sheekadiisa guurku weli bilow tahay ayuu ninkii Subeer maalintii dambe soo dhacay wuxuuna soo galay goor galabaha Subeer markiiba inta uu maydhay oo iska bedelay maryihii uu safarka ku soo galay ayuu degdeg uga soo baxay gurigii wuxuuna u dhaqaaqay dhinacii guriga Salma oo aan aad uga fogeyn Subeer inta uu yimid meel aan aad uga fogeyn guriga Salma ayuu wiil yar oo dariska ah ku yiri walaal iigu yeedh Salma xaaji Abtidoon Salma markii uu wiilka yar fariinta gaarsiiyay ayay dibadda u soo baxday waxayna isha ku dhufatay wiilkii Subeer oo meel guriga u dhow fooda ku soo haya kadibna way u tagtay hase yeeshee hadal badan kama gaarsiin kareenin sidaa awgeed salaan kooban kadib waxay si degdeg ah iskugu qadimeen ballan waxayna ballameen fiidnimada caawa iyadoo ay goortaasi ahayd abbaaro 5:00 galabnimo Subeer wuxuu Salma u sidaa hadiyad muhiim ah oo ka kooban alaabooyin kala nooc ah waxaana Subeer dareenkiisa ka muuqata boholiyow badan iyadoo muddadii bisha ahayd ee uu maqnaa ay kaga badnayd sanad sidoo kale Salma lafteeda waxa dareenkeeda ka muuqatay muxibbo iyo xiiso badan waxaana shucuurteeda laga akhriyay inuu yimid qof ay maqnaanshihiisa tabaysay taasoo la oran karo iyadana dareenka caashiqu wuu ku fogaaday arrintu sida ay doontaba ha ahaatee Salma iyo Subeer goor fiid horaad ah ayay isugu yimaadeen goobtii ay ku ballameen oo ah meeshii ay weligoodba isugu iman jireen dhinaca kale isla galabta waxa kulan u socda ninkii Mursal ee Salma inaabtigeeda ahaa iyo odaygii Salma aabaheed ee xaaji Abtidoon Mursal wuxuu hadalkiisa ku bilaabay adeer sidii aan horeba idinku sheegay fiisaha aan sido waxa ku qoran 2 qof labada qof mid waa Ruun ka kalena waxaan ugu talagalay inaan ku kaxeeyo hadba gabadhii aan calaf guur isku yeelano iyadoo markii aan xaggaa ka soo kicitimay ku talagalkaygu ahaa in aan dalkii ku soo guursado haddaba adeer markii aan wax indheeyay nasiib wanaag waxa dooqaygii iyo taladeeduba ka wadi waayeen inaan guursado inaabtiday Salma waxaanan oran karaa waa Ilaahay mahadii haddii ay idadii Ruun iyo walaashay Salma noqdaan labada qof ee raacaya marka adeer adiga oo aniga iyo inantaba waalid noo ah arrintaasi sidee bay kula tahay ma kula tahay inaad igu darto Salma xaaji Abtidoon diidma meesha ugama furna waayo meesha inanta lagu weydiistay waa gurigiisa dhexdiisa ninka inanta weydiistayna waa ninkii uu idadii qabay isla markaana waa ninkii Jarmalka uga soo dhoofay inuu islaanta Ruun
ee gabadha hooyadeed ah daaweyn ugu qaado dalka Jarmalka. qolka xilligaa la fadhiyaana waa qolkii ay run jiiftay. sidaa awgeed waxa kaliya ee xaaji abtidoon u bannaani waxa weeye inuu yidhaahdo waayahay gabadhii waan ku siiyey. kadib xaaji abtidoon intuu cabbaar aamusay ayuu ku tiraabay, horta mursalow inankaygii baa tahay, waadnad og tahay aniga iyo iddadaa run inaannu wax ubad ah dhallay Salma oo qura. Soomaalidu waxay tidhaahdaa gayaan ahaan inaabtigaa isugu xaq leh, ama waxaaba inoo dhaqan ahaan jirtay inay inaabtigu isguursadaan. marka waxba yaanu hadalku ila sii dheeraane gabadhii inaabtidaa ahayd waan ku siiyey waana ku meherinayaa. dabadeed mursal intuu soo kacay uu aad u farxay ayuu odayga xaaji abtidoon gacan qaaday kuna yidhi adeer waad mahadsan tahay ee guddoon wacan. xilligaasi waa goor fiid horraad ah. Subayr iyo Salma waxa u socota sheeko aad macaan, waxayna fadhiyaan geed ku yaalla hodheel ay ka casheeyeen hoostiisa. Subayr iyo Salma waxa hadheeyay dareen muxibo oo midba midka kale uu aad u xiisaynayo. isla markaana waqtigan xaadirka ah dareenka caashiqu keli kuma aha Subayr dhinaciisa oo keliya, ee waxa labadoodaba sida caleemaha geedka u ruxayso saxan saxo cishqi oo qulubtooda biyo dhigtay. waxayna xilligaa si xiisa leh u gorfaynayaan sidii ay uga midho dhalin lahaayeen hiyigooda jacayl iyo sidii ay ugu gogol xaadhi Subayr iyo Salma waxay sheekadii sii macaansadaanba waxay saacadu gaadhay 8 habeenimo. kadibna Salma oo ka warwarsan gurigoodii iyo islaantii hooyadeed ee xanuunsanaysay ayaa codsatay inay sheekadu caawa halkaa ku joogsato. dabadeedna Subayr intuu Salma albaabka gurigooda keeno ayuu sii macaansalaamayay. gabadhii Salma waxay markiiba degdeg u gashay gurigii, iyadii oo ay aabbaheed xaaji abtidoon iyo inaabtigeed mursal xaajo meel isla sii dhigeen oo ay iyada sugayaan, taasoo ay doonayaan inay arrinta ku wargeliyaan. Salma waxay guriga soo gashay iyadoo aad u faraxsan oo ay Subayr sheeko fiican isla soo qaateen. sidoo kale Subayr wuxuu gurigoodii dib ugu noqday isagoo aad iyo aad u niyad wanaagsan. wuxuuna la kulmay markiiba aabbihii oo uu u sheegay inuu helay gabadhii uu guursan lahaa oo ay tahay Salma xaaji abtidoon. kadibna odaygu inkasta oo aanu arrintaa aad uga wada helin, haddana wiilkiisa muu tusin dareen diidmo, wuxuuna ku yidhi aabbo ma xuma ee aynu ka tashanno. Subayrna wuxuu aabbihii ugu jawaabay waayahay aabbo. gabadhii Salma markii ay cabbaar guriga joogtay ayuu odaygii aabbaheed oo la fadhiya inaabtigeed mursal uu u yeedhay, wuxuuna ku yidhi aabbo halkan soo yara fadhiiso, arrin yar baan kuu sheegayaay. dabadeedna waxay soo fadhiisatay meel odayga u dhow. kadibna odaygii aabbaheed ayaa hadalkii bilaabay, wuxuuna yidhi aabbo waxaan ku siiyey inaabtigaa mursal, wiil ka bacdina adiga iyo hooyadaaba waxaad u dhoofaysaan dalka Jarmalka oo waxa idinka haynaya mursal. markaa aabbo waan iskugu kiin ducaynayaa adiga iyo inaabtiga, ilaahayna khayr ha idinkala siiyo. gabadhii Salma markii aabbaheed uu ku wargeliyey inuu inaabtigeed mursal siiyey iyadiyo hooyadeedna Jarmalka loo kaxaynayo, talo way ku ciirtay oo si ay yeesho way garan weyday. waayo markii hore waxay ahayd qof ilaahay akhlaaq wanaagsan iyo adeec waalidnimo ku manaystay. sidaa awgeed aabbaheed diidi kuma odhan karto. talabaad hooyadeed oo liidata oo diyaal ah oo aan cid iyo ceersi kala lahayn oo dal shisheeye loo qaadayo kama hadhi karto. dhinaca kalena waxa ku mudan fallaadhii caasha ee uu garka wadnaha kaga taagay Subayr iyo axdigii madhaafaanka ahaa ee ay la gashay Subayr. sidaa awgeed xaaladdeedu waxay gashay laba dhagax dhexdood iyo meel cidhiidhiya. waxaana Salma xaaladdeeda noqotay hadal waalid ma diidi karo, habaar adag buu dhalaa, haydaarta ma yeeli karo, jacaylkuna way hayaa. hadal waalid ma diidi karo, habaar adag buu dhalaa. hadal waalid ma diidi karo, habaar adag buu dhalaa, haydaarta ma yeeli karo,
haya haddii arrinigu absaday xaggeen talo kaga hagaaga la soco qaybta shanaad ee sheekadan aadka u xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka